waa meerta dunida mawla sida uu sameeyay masagtiya maatida maalin bay meel saramaraan mowjadaha nolosha midda ku wanaagsan mawla garan midda aad mici abaysiyo moodka amoodaba muunad iyo marla arag oo noqota waxaan maanta halkaan kugula wadaagayaa qisada faryaamiistii laga ceeriyo shaqada maanta aanan ku mihaysan laakiin noqday mid kamid ah hantiilayaasha ugu caan Mareykanka ma uusan filanaynin inuu maalin noqon doono mid kamid ah aasaasyaasha milkiilayaasha mid kamid ah hoteelada ugu waaweyn adduunka inuu ka tagayo shaqada ka shaqeeya warshada alwaaxda sameeysa oo noqonaya mid kamid ah taajiriinta ugu caansan ee Mareykanka ninkan qisadiisa ka sheekeynayno waa Wallace Johnson aasaasaha iyo milkiilaha silsilada hoteelada Tahan daafaha iyo dacalada dunida ee Holiday Inn ku soo dhawaada qisada ninkan oo aan ka baranayno cashir ku saabsan mid kamid ah safxooyinkiisa nolosha Wallace Johnson wuxuu ka shaqeynayay warshad sameeysa alwaaxda waxa uu shaqeynaya si adag isagoo ku bedelanaya mushaar yar oo aan ku filan baahidiisa laakiin wuxuu aad u jeclaa shaqadiisa waxa uu ku qaatay warshadan sanadihii ugu fiicnaa noloshiisa maadaama uu ahaa nin daayar oo awood u leh inuu si adag u shaqeeyo markii uu gaaray da'da 40aad oo uu noqday mid xoog ahaan dhameystiran waxa uu muuqday mid sii jooga shaqada sanado kale laakiin waxa kadisii fajiciisa ku noqotay in warshadii uu madada inta le ka shaqeynayay mar qura maamulihiisu ku wargeliyay in shaqada laga ceeriyay bila sabab durbaba ninkii dhalinyarada ahaa noloshiisa ayaa isku rogtay mid qarw ah kadib markii uu wadada ku huleelay isagoo hadaf iyo rajo la'aan ah waxa maskaxdiisa ka dhex buuxay oo soo hordhigay dibna u daawanayay sawirada dadaalkii burburay ee sanadihiisii nolosha oo dhan oo ka shaqeynayay warshada waxa ka xirmay halka albaab oo kaliya noloshiisa waxa ugu daranay shahwariirkiisa wuxuu ahaa in isaga yaafadiisa aysan haysan il nololeed oo aan ka ahayn mushaarkiisa yar ee warshada alwaaxda sameeysa oo ka qaato mana uusan lahayn aqoon kale gurigiisii ayuu gaaray afadiisii ayuu u sheegay wixii ku dhacay xaaskiisuna waxay ku tiri maxaad yeelaysaa waxa uu ku yiri waxaan rahan u dhiganayaa gurigeena yar dabeetana waxaan bilaabayaa dhisidda guryaha yaryarka ah sidii ayuuna sameeyay waxa uu dhisay labadiisii guri ee ugu horeeyay oo ah guryo yaryar dabeetana waxa xigxigay mashaariic kale oo yaryar way bateen waxa uu noqday mid caan ku ah dhisidda guryaha yaryarka ah 5 sano dadaal xariir ah kadib waxa noqday milyaneer caan ah 1991 Johnson waxa uu dhaqaaqay inuu dhiso hotelka Holiday Inn kaasi oo horay u dhisnaa si loo abuuro qiimo macaamiil gaar ah waana dabaqada dhexe oo daneynaya helidda qolal deegaan wanaagsan leh oo qiimo macquul ah inta badan maanta hoteelada Holiday Inn waxay u muuqdaan xarumo ganacsi waayo waxa lagu qalabeeyay kombiyuutarro daabacaad iyo wireless internet oo qolka dhexdiisa ah iyo adeegga wicitaanka maxalliga ee bilaashka ah ee laga heli karo hoteelada ku yaala Mareykanka Wallace Johnson wuxuu ku yiri buugiisa xusuus qorka haddaan hadda ogaan lahaa meeshuu degan yahay maamulihii shaqada iga eriyay waan u tagi lahaa waan u mahad celin lahaa si weyn wixii ugu sameeyay darteed markii ugu dhacday arinta culus si weyn baan uga xanuunsaday mana fahmin sababta igu dhacday arinta laakiin hadda waan fahmay waan in Allah iga xiray albaabka soo igu furo wado nooca iyo faa'iidada sheekada ceyrinta ma ahan dhamaadka adduunka ceyrinta laga ceeriyo shaqo ma ahan dhamaadka noloshaada waxayna noqon kartaa bilowga fursad cusub oo noloshaada iskuna bedeli doonto noloshaada sida ugu wanaagsan ee aadan filanayn sida ku dhacday Wallace Johnson hadii uusan shaqada ka eriyeen maamulihiisa ma uusan noqon lahayn milyaneer mid xigta waa qatar u bareerida dunidan halabuurka ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay qatar u bareerid laakiin waa qatar u bareerid lagu laray xisaabtan iyo inaad si saadaaliso cawaaqibka ka dhalan kara mashruuca sidoo kale aad daraasayso oo aad wax badan ka fahanto waxaad halabuurayso ee aadan degdegin iska hubi intaadan hooban mid ugu dambaysa faa'iidooyinkan ka dhaxalnay qisadan waa khibrada mar waliba ahaw mid halabuur sameeya mar walba ka taqaluso shaqo ama badeeco la imo halabuur kale maxaa yeelay halabuurnimada ay kugu hogaamiso gool iyo inaad meel sare gaarto waad ku maasan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijyadeena ganacsiga dhiirigelinta badan intaan mar kale ku kulmayna barnaamijkan ka lamid ah waxaan isku dhaafnaa waa amaana Allah